بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxa idinka muuqda waa boqor cawil xasan cirmadow oo aan ku casuulnay maanta xarunteeda warbaahinta oo andana xaalado badan oo ay Soomaaliland ku sugan tahay ka wareysano marka boqor aad iyo aad ku salaamina ku soo dhawo waan dhawahay waan ku salaamay abdi waxaan salaamay ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliland waxaan ku salaamay islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad boqor u salaaman tahay sidoo kale anaguna salaantaas waa ka gudoonay boqor waxa jirta xaalado badan oo imika ay dalkeenu ku sugan yahay oo aad moodo inay silsiladii Soomaaliland yara liqliqanayso meelo badanna kacdoono badan ay ka soo baxayaan aan kugu kala horeysiyo tii u dambeysay waynu ogeyn boorame taas waxa moodaa imika iska soo dhamaatay horta xaaladda balka war halka ku dambeysay wallahi assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mar labaad mar saddexaad salaamaya waxay ku dambeysay waynu saynu imika wada ogsoonahay waa nabad bay qaateen dhaqanku iyo shacabku oo u dana laakiin gamco shay lagu jira nin walba dee wuu ka dharsay nacasta loo sheegi maayo nin walba wuu ka dharsay nacasta loo sheegi maayo gamco shay lagu jira oo aan yarayn oo waliba dariskeenu ka mid tahay Soomaaliya ka mid tahay awoodda badan saaraysa in Cumar Geela ka mid yahay Ethiopia ka mid tahay nin walba wuu ogsoon yahay waana iska dhamaatay waana xaalka hadhayna dee rag iyo rag baa joogo Soomaaliland kursiga miiska wada halkay ku dhamaysan jirto way iska dhamaanaysaa taasna ilaahay ka rajeeyo maasha Allah ilaahay nabad ha inoogu dhameeyo waxa jira kacdoonka kadib kacdoonno kale xagga sandaladaha Soomaaliland waxa ka yimi haddana kacdoon kale waxa soo baxay boqor la yiraahdo boqor dhuux baraar oo waqti dheer jiri sida sheegeen salaadiin badan sheegtay marka xaaladda taagan iyo carqaladda imika cusub ee timi ilaa waa la calaam sare Soomaaliland ay isku yarahaysato shicibkooda waxa taa korleed marka wadamo mar mustaqbal baan salaamay waxaan ka oran lahaa horta dhuux baraar boqortinimadiisan ama saldanadiisan waxay ahayd 800 sano ka hor inta jara soo socotay ma jirin oo ciidamayso waxay soo foostooyin baa la soo riixaya shacabku de way ka dhagalayeen waxaan media dadka loogu shubay ka raacayaan laakiin waxaan u iftiiminaynaa in arrin siyaasadeed ay tahay oo aan lagu dhex milmin oo shacabka la kala goynin oo qolada xasaan ay soo saldanadii baa la soo weeraray qolooyinka kalena aanay soo tiini baa la diidayaa laakiin foosta la soo garaangeliyo rag cayiman soo garaangeliyeen oo loogu xusbiyadu siyaasada ay tahay oo la doonayo in saddexdan xusbiye beesha qura ka soo wada jeeda lagu soo kala gooyo waliba loogu danaynayo in xaashi weeyaan marka waxaan leeyahay foostooyinka la soo riixayo yaana idin kala dilin dhaqankeenu wuxuu lahaa hidaraac buu lahaa kun awow kala tirsanaya suudaanka guud ciidagalu ahaa wuu isaaqna waa wada ogsoon yahay dee nacasta loo sheegi maayo in sideedii lagu socdo oo loo daayo ayay ku qurux badan tahay oon dadka la iska horkeenna nimanka dhaqanka ay nimanka siyaasiyiinta iyo dhaqanka ku dhex marmay siyaasiyiinta waxaan odhan lahaa war dalka iyo dadka u daneeya halka kelmad aan iga soo baxday hadalkaaga boqor waxa tiri gudoomiyaha xisbiga kaah ayaa dan ugu jirtaa marka halka loo yar iftiimin kartaa waxay u baahan tahay hadda waqti badan bay u baahan tahay waxa la karinayaa saddex nin oo isku beelaba saddex xusbi kala sharaxan oo codku kala waaya haddii foostaa lasoo garaangeliyo beelahu kale ee darafyada ee citaabasan haddaan carabka ku dhuftaana ka dhowrin garxajis la yidhahdo kale haddaan la kala dilin dee xusbiga wadani unbay soo saarayaan oo xirsay soo saarayaan oo awoodda isugu geenayaan iyo cod intuu ka helaabay talkiiba laakiin haddii tal la garaangeliyo talku waa kala dhimanaya markaa ka iyagu doonayaan unbaa soo baxaya waa sheeka process dheer oo jaranjaraha u baahan inaynu waqti gelino aan borogaraam gaara ka soo saaro inaba faahfaahinayna aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan se kusoo koobi lahaa ummadda waxaan u sheegayaa shacabka walaalaad tihiin inaan iyo abtigii baa tihiin inaan adeerkii baa tihiin ama dhulbahanto ahaw oo Somaliland haddaad tahay ama sacad muuse ahaw ama abarsuulis ahaw ama abarjecel ahaw ama ciddaad doonta ahaw ama gudubbiirsi ahaw walaalaad tihiin waxay midaysay calankan iyo dalkan iyo xuduudda ay midaysay marka taa meel uga soo wada jeesta wixii khalkhaladooda iska qabta dhalinyarada waliba waxaan u sheegay in maskaxdooda korto inay Somalilandnimadu ku dheeraato oo ay dalkooda soddonka sannadood dowladda ahaa la ictiraaf waaye maanta isha u baxday iyo iftiinku u iftiimay in iftiinka aanay iska dabine ay la wadaan madaxweynaha la shaqeeyaan aad iyo aad baad mahadsantahay
markaynu ka nimaadno sandaladda foostooyinkan la isku riixayo sidaad adiguba sheegtay foosto xisbiyadii waa soo baxday xisbigii kulmiya ayaa dhexdiisay foostooyin isku riixaya waad arkaysa ilaa shalay toole in ilaa uu xataa uu musabix arrinkaa ka hadlay maxay kula muuqataa khilaafka dhex yaalla xisbiga kulmiya waxay la muuqataa muuse biix cabdi xildiid meel aan albaabkeedii ahayn buu garaacaya waa oday weyn waa oday madaxweyneha waa oday dalka madaxweyne u soo noqday waa oday gustambeed waa oday dadkii loo laabanayay dib markay isku somaliland isku murugto loogu laabanayay inuu dadkii isku murgiyo ma aha hadal yeelkaba waa la caddeeyaa baa layidhi waan caddaynaya waxaan ku caddaynayaa muuse dee waxaa guddoomiye ah ninka lagu yidhaahdo ina kaahin axmed guddoomiyaha xisbiga weeyaan tiisaanay dee noqonaysaa xisbigu shuruuc leeya shuruucda haddaan la raacin dadku dee indhala-aan bay iska wada gelayaanoo meel hagaagaysaa ma jirto laakiin haddii shuruucdii aynu dhiganna aynu raacno tanaynu joognay maanta ingiriiskuba dee shuruucun bay ku kala socdaan haddaad shuruucdaa dhaafto waad xidhmaysaa marka qas in la geliyo dalka ma aha in xusbiyada la khalkhalyana ma aha xusbigan waxaa ina kaahin cabdiba oo ah guddoomiye waa lasuu sheego haddii goordhaxa lagaga qaado laga foodo foodka marka la qabto laga foodo dee wejigeeda iyo dastuurkeeda iyo nidaamkeeda leedahay laakiin muuse waxaynu wada ogsoonnay markaan hadalka runta laga sheegayo anugu dhaqan baanay nin gaara duri maayo cid gaara qabiili ma yihi boqor waxaanu ahay sir somaliland oo dhan yar meel kastuu joogo ama laascabada joogo ama ha joogo sayla ha joogo waxaanu ahay boqor ka ciise ka guda biirsi ka isaaq intaba boqor baano oo dhaqankooda ka mid ah mid walbana wuu qabsoomaya mid walbana waa korsoona waxaan kuu sheegayaa muuse biix cabdi inaad halkaa faraha kala noqdo ka gaabsataaba fiican oo tabtii riyaale aada maamuus iyo dalka qaranka maamuus iyo sharaf baad ku leedahay markuu murgo inaad kala saartaa baa loo baahan yahay halkaad wax ka eegtay waa meel gaaban maan lahay aad baad mahadsantay waxay kusoo gabagabaynaynaa xukuumaddan kusoo noqonaynaa xukuumadda waxaa jira saluug badan oo hadda laga muujinaya maadaama xaalado badan iminka intii uu hayay madaxweyne cabdiraxmaan ciro khilaafyo badan oo dowladda iyo shicibkii dhexdooda ka abuurmay baa jira saluug badan oo xukuumaddiisa iyo wasiiradan iyo uu magacaabay uu shaqeeya hadda la saluugsan yahay baa jirta maxaad oran lahayd isku shaandhayntaa la sugayo ka odhan lahayd adigu xukuumadda ama isku goori lahayd cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi marka shaksiyan keligii laga hadlo waa nin dalka u dhimrinayo waa nin daacada waa nin siduu wado anag sawid ka maqsuuday mushkiladdu waxay ka taagantay dadkan uu doortay cabdiraxmaan waxaan leeyahay gaalada waxay taalaa think before you say three times before you say war intaanad hadalka odhan cid magacaabin ka fakar qofka shaksiyadiisa aad dooranayso inuu wadani yahay inuu dalka jecel yahay inuu horumar kula jecel yahay inuu qabyaalada kula suulinayo qabyaalad baa dalkii ka abuuran reer bay noqotay meeshii halkay kor socon lahayd hoos bay u socotaa dadkaad dooranayso marka hore ka fakar intaanad u yeedhin ummadana la tasho dadkanaad dooratay waa wadaxun yar olmayno laakiin saynu wada ogsoonahay saluug badan baa shacabkii muujinaya qarankii muujinaya dib isku shaandhayn dambe samee dad u qalboo kula shaqeeya dooro waa hebelku odhan mayno lagu tilmaami maayo dib ugu noqo dib u eegis ku samee adugu shaksiyad wacantahay haddii aan cidda kugu xeeran aanay wanaagsanayn oo wax kula duginayso hore awrku u kici maayo marka si awrku u kaco war dad caqli gala wixii hore way dhaceen dad caqli galo macquula wax kula kiciya dadka ka dhex dooro waan salaamaya aad iyo aad baad mahadsantahay